dhakhtar u dhashay waddanka Masar ayaa noqday qofka kaliya ee Muslim ah ay Israa'iil guddoonsiisay abaalmarin. Yahuudda ayaa siisay bilada u sareysa waddanka dhakhtarkan, laakiinse reerkiisa way diideen abaalmarinta. Israa'iil ayaa waxay sawirkiisa sureen halka dadka ugu sharafta badan ee u soo halgamay arrimaha Yahuudda. Waa kuma? Maxamed Xilmi. Waxa uu ku dhashay magaalada Khartoum, caasimadda waddanka Suudaan, sanadii 1901. Waxa uu u safray waddanka Jarmalka si uu u barto caafimaadka. Inta uu waxbarashada ku jiray waxaa ku dhacay jacayl oo wuxuu jeclaaday ardayad Jarmani ah oo lagu magacaabo Fredi Strossmann. Waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda caafimaadka ee Berlin. Waxa uuna ka shaqeeyay machadka Robert Koch ee caafimaadka. Xilligaasi waxaa xukunka waddanka Jarmalka qabsaday xisbigii Hitler ee Naaziga. Kadib dagaalkii koowaad ee dunida, waxa ayna xisbigaasi dhaqan geliyeen sharci qof aanan u dhalan waddanka Jarmalka inuusan dhalasho qaadi karin. Sidaasi ayaana dhalashada looga ceshtay. Waxa uuna ku waayay shaqadiisa, arrinkana aad ayuu ugu adkaaday. Waxa uu isku dayay inuu guursado jaceylkiisa u dhalatay waddanka Jarmal, laakiinse sharciga cusub ee sanadii 1939 ayaa ka hor istaagayay guurkaasi. Waxaa ku dhacay niyad jab. Waxa uuna bilaabay in xisbigii Naasiga uu dhaleeceeyo, taas oo sabab u noqotay in lagu xiro xabsi lagu magacaabo Auschwitz. Intii uu ku jiro xabsigaasi ayaa loo geystay jildir, waxaana xumaatay xaaladiisa caafimaad, taas oo ugu dambeyn sabab u noqotay in la iska sii daayo. Dhakhtar ayuu furtay oo waxa uu bilaabay in uu qof walba daweeyo, iyadoo looga digay in uu la macaamilo Yahuudda. Laakiinse Maxamed waxa uu u bareeray in uu daweeyo Yahuudda xanuunsan iyo kuwooda faqiirka ah, isagoo ku xumeynaya xisbigii Naasiga ahayd. Waxa uuna bartay gabar ka mid ahayd dadkii uu daweynaya oo Yahuud ahayd, taas oo loogu magacaabay Anna Boros. Ciidamada Naasiga waxa ay bilaabeen inay soo xirxiraan dadka Yahuudda ah ka hor dagaalkii labaad ee dunida. Kadib Maxamed waxa uu go'aansaday in uu caawiyo Anna iyo reerkeeda. Waxa uuna ku qariyay guri uu deganaa. Waxa uu isku dayay qaabkii uu u saacidi lahaa. Waxa uuna u sameeyay aqoonsi been abuur ah iyada iyo reerkeeda oo dhan si ay uga cararaan. Waxaa bilowday dagaalkii labaad ee dunida, waxaana la ugaarsanayay dadka Yahuudda ah. Dhakhtar Maxamed ayaa muddo 3 sano ah reerkaasi ku qarinayay gurigiisa. Waxa uuna u xiri jiray dharka muslimiinta ah, isagoona u sheegi jiray dariskiisa in ay yihiin dad qaraabadiisa ah oo muslimiin ah. Cadaadis badan ayuu xil walba kala kulmi jiray ciidamada Naasiga ayagoo baari jiray gurigiisa iyagoo ka shakisan in ay ku nool yihiin dad Yahuud ah. Maxamed ayaa reerkani ku hayay gurigiisa ilaa uu ka dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, dagaalkaas oo uu Jarmalka ku guuldareystay. Kadib waxa uu reerkii u diray waddanka Mareykanka. Maxamed waxa uu guursaday gabadhii reer Jarmal ee uu jaceylka kala dhexeeyay. Waxa ayna ku wada noolaayeen magaalada Berlin ilaa uu ka geeriyooday sanadii 1982. Anna Boros ayaa qortay buug taariikh nololeedkeeda. Waxa ayna hadiyad ahaan u siisay qaar ka mid ah Koongareeska Mareykanka. Waxa ayna ku sheegtay buuggaas abaalkii weynaa ee uu u galay ninkaasi Masriga ah oo garab qabtay, isagoo aanan waxna ka qaadan. Wargeys qora arrimaha Yahuudda ayaa qoray qisadii dhakhtarkii Muslimka ahaa ee Masriga. Kadib dowladda Israa'iil waxa ay bilowday raadinta reerkii Maxamed. Waxa ayna u xil saartay soo saaro Yahuud ah oo lagu magacaabo Talia. Waxa ayna soo heshay reerka Maxamed Xilmi oo deganaa magaalada Qaahira. Laakiinse reerkaasi ayaa diidanay in muddo ah in la guddoonsiiyo abaalmarintaasi oo ay ku guddoomaan gudaha waddanka Israa'iil, ilaa ugu dambeyn markii dambe ay ogolaadeen inay ku guddoomaan waddanka Jarmalka. Nala wadaag fikirkaaga. Dhakhtarkani arrinkan uu sameeyay ma qiyaamo qaran baa mase waa bini'aadanimo? Fadlan ku soo qor fikirkaaga commentiska.